ذكرك إلهي وصدح قيبون ذكر القلب هي ذكر الجوارح هي ذكر اللسان ذكر اللسان وكان عربك ويان مركات هذا سبحان الله عربك إلهي عز وجل كحسن مركات هذا الحمد لله عربك إلهي وقوم هالنغضي مركات هذا لا إله إلا الله عربك أجيب إلهي كو حدي مركات هذا الله أكبر عربك أجيب إلهي كو ينيس وذكر اللسان لا حول ولا قوة إلا بالله باكمده كنز من كنوز الجنة وأخذ كنز الجنة دحيا لبو نبي يقول كالمداس إبراهيم عليه السلام إبراهيم الخليل أيو النبي قال نكسو أمرت تضبضا سمدا تضبط كوركيدا وعود أمد هذا سلام نيجا قارسي وحاندو شاكتا أرلada jannadu dhulkeedu waa dhul banaan oo in la beertana ma aragtana ku fiican dhirta jannada ku taalana waxa lagu beeranayaa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar hadaad imika halkaas ka fadhiisato tiraahdo subhanallah gharsun fil jannah geed baa jannada lagaaga beerayaa la ilaha illa allah markaad tiraadid gharsun fil jannah wallahu akbar markaad tiraadid غرس في الجنة جيت جنة كويا لبو نبي قول عليه الصلاة والسلام فرسك فردها ugu orod dheereeya ninka fuushane wata harkiisa dhameeyay ma yabu nabi qul haduu 100 sano oo hoos ordana waa geed jannada ku yaala oo lagu diyaariyay adiga ayuhal muumin oo tasbiix iyo tahmiid iyo tahliil iyo takbiir ad ku beeratay wadhillin mamdudin wa ka ilaahay ku sheegay fi suurati alwaaqi'ah وهذا لفديي ويان با إلهي جنة هركيدي geedaheegu faraska faras la fuula faraska ugu orod daaraya 100 sano ayuu hoos ordaya buu nabigu عليه الصلاه والسلام mana dhameyn kareysan buu nabigu ka bixi kareemaysan waxana lagu baaranaya waa tasbiixdaas man salla lillahi 12 rak'atan tatawwu'an ghayra al-fariidah bana Allahu lahu baytan fil jannah أو بني له بيت في الجنة لبي يتبرك عدود الصناء وفق مالك تكذب نبي عليه الصلاة والسلام أقل أيام ماركتانا جنة الله قد سيا أقل كجنة الله قد سيا إنتول لأجيهي إلهي بحجم يسي قياستي سجران كرا لبي يتبرك عدود بنبي شيء لبي يتبرك عدود والله بدر عدود الفجر ككهر الرئيسة يا أفر ظهر ككهر الرئيسة يا لبا ظهر كقدم بيسا يا لبا مغرب كقدم بيسا يا لبدا عشائيga ka dambaysa 12 ka rakcadood qofka maalin walba laazima waa rawaatib ayaa la yiraahdaa ilaahay azza wa jalla aqalbu jannada uga dhisaya aqalka adduunyada aqalada adduunyada bini aadam baa dhisa injineer iyo umaalin baa ku dhisaysa laakiin aqalka jannada muuminka ilaahay ugu diyaariyay ilaahay baa ku diyaariyo wuxuu ku dhisay kun fayakun عمر الفاروق رضي الله عنه أيا يري قصر جنة كويا لا أيا جرى قصر شنبغلو الباب ولا يحي والله قالوا الباب كقفك مؤمن كو حقاقبه waxa u joogtay buu 5 kun oo xuur alcayna waa 2 milyan iyo 500 kun oo xawraaya ayaa hal qasri oo jannada ku yaala ku xareysan markaas Umar ibn Khattab ayaa la weydiiyo lagu yiri qasrigaas Umar al-Faaruq ما النبي بهلي دونه مرقاس يقول عمر ها نبيدن ويهليان لكن الصديقين ويهليان بيقولي قصر قاسي waxa loogu talagalay al-anbiya alayhim assalam markaas nabiga qabrigiisa gacanta ku fiiqo wuxuu yiri hani an laka ayuha nabi nabi maxamed oo qasriga waan ku haneeyay hadana abubakar qabrigiisa buu farta ku fiiqo wuxuu yiri hani an laka ayuha siddiq qusurta inta leeg siddiqiintuna way gali doonaan هنيئا لك أيها الشهيد وأن لك شهادة يا عمر مركز يقول ولي بقصرك كو شهادة قعنت عدوك كل انت إلهي درتي اللو دلينا ويهلي دونان لكن عمر وأدوك الشهادة هل كيد كهلي دون تابو يلي ما لنت انت كدن بيس عمر بن الخطاب وحب العبي إنه كدو عيستو يرادو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد حبيبك إلهو أنيق شهادة يقول أرزاق شهادة إن دين تادا أولنتو وقعنا عدو أن كل انت إلهو إيدب يرى يقول أرزاق ويقول ديق
waliba baladka xabiibkaaga anigoo joogo ilaahu isii wiili markaasaa lagu yidhi cumar ma madiinata almunawara oo daarul khilaafa ah oo cadligii islaamku meel walba uu gaadhay miyaad shahaado adigu aad ku sugaysaa markaasuu ilaahay waa qaadir inuu isiiyo buu yidhi abu lu'lu'ata almajuusiy cabdu mugiira binu shucba kii midiyaha iyo biraha u samayn jiray ayaa cumar alfaaruuq radia allaahu canhu isagoo salaadiisu fajar ku jira ayuu midi geliyey baa layidhi intuu gadaashiisa soo taagay markuu cumar dhulka ku dhacay ayuu yidhi ayaa i dilay ayaa midida i geliyey ii sheega markaasaa lagu yidhi abu lu'lu'ata almajuusiy walid maaragtaan mugiira binu shucba addoonkiisii majuusiga ahaayee dabcaabudka ahaayee biraha iyo qolxadada iyo seefaha iyo gaashaannada u samayn jiray kaabaad maaragtaane ku dilo isagiina waan haynaa markaasuu cumar yidhi alxamdu lilah marba haddaanan gacan muslim aanan ku dhiman oo nin majuusi oo mushriga gacantiisa maanta aan ku dhintay waataan ilaahay weydiistay buu ku yidhi waataan ilaahay weydiistay daadna cumar markaa u dheelmaday markaas yani u miyir daboolmay markaasaa si walba markaa loo taataabtana jidhkiisii waa dhaqdhaqaaqaya laakiin hadal ma soo celinayo waa amiirkii muuminiinta dardaaran baa laga rabaa uu dhiig baxay dhakhtarrada casrigan maanta innagu aan haysanan isagu ma haysan innaka markiiba qofku markuu shil uu galo ambalaas markiiba la booday oo dhakhtar baa la geenayaa bal ambalaaska dhexdiisa laga yaabaa haddii uu dhiig ka socdo markaaba dhiig joojin in loo sameeyo ambalaas dhulka socdana uu jiraa ku hawada socdana uu jiraa diyaaradaha waxaa jira iyakuna hawada maro oo lagu leeyahay waa ambulance waa la kireystaa cumar alfaaruuq radia allaahu canhu dhiw dhig baxay isagu nicmadan maanta innagu aan haysanay aalaadkan ilaahay noogu nicmeeyo dhinac walba ilaahay uu naga dhigay ma haysan iyaku zamankooga waa zamankii awrta iyo baqasha iyo dameeraha iyo lugta la adeegsanayey waa zamanka qofku hadduu helo hal wajbad buu cuntada cuni jiray waa zamanka qofku maaragtaanay hadduu aqalkiisa uu noqdo aqal cariisha oo maaragtaana isaga uu qariya oo ilaahay ugu mahadinaya weeyaan zamankaasi markaasaa si walba loola hadlay yaa amiira almu'miniin yaa amiira almu'miniin nin baa yimid oo yidhi anigaa cumar kicinaya ii dhaafa buu yidhi asalaata yaa amiira almu'miniin asalaa yaa amiira almu'miniin yaa amiira almu'miniin salaaddii baa taagan yaa amiira almu'miniin salaaddii baa gaadhay hal mar keliya cumar indhaha intuu sidaa u kala qaaday buu ku yidhi buu yidhi inahaa xaqun walaa xada fi lislaami man taraka asalaa salaadda waa xaq ilaahay nagu leeyahay qofka salaadda ka tegayna diinta islaamka nasiibkumale buuhi qofkaasi markaasuu anu ma tukaday markaasaa lagu yidhi rakacad baa tukatay laakiin rakacad baa kuu hadhan baa lagu yidhi rakacad baa kuu hadhay markaasuu xidhay haddana uu dhacay fadhiga uu jiifaa uu xidhay haddana uu miyir daboolmay uu soo kacay ma tukaday may ma tukan haddana uu ku celiyey ma tukaday haa waa tukatay baa lagu yidhi markaa buuhi alxamdu lilaahi aladii acaananii calayha ilaaha waxaan ku xamdinayaa salaaddaa inaan dhammaystiray igu caawiyey baa mahadla buu yidhi amarka ilaahay bal halka uu ka taagnaa iyo ka eega shahaadadu waa taas sidqu likhlaas cumar alfaaruuq ilaahay madiinata almunawar uu ilaahay shahaado ku siiyey marka qusuur baa ilaahay jannada muuminiinta ugu diyaariyey qusuur ragga muuminiinta iyo gabdhaha muuminaadka haweeney duqa nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam markaa bay tihi yaa rasuul allah islaan yaa rasuul allah bal jannada iiga sheekay bay ku tihi jannadan mushtaaqadu ahe shawquljanna markaa iyadana ku jira markaa buu nabigu ku yidhi islaan duqa jannada ma galayso buu yidhi way naxday aqalkeedii bay ku noqotay oydi markaaba nabiga loo sheegay oo lagu yidhi yaa rasuul allah islaantii heblaayo duqda ahayd ee jannada ku weydiisay ee aad ku tidhi islaan duqa jannada ma geli doonto way ooyeysaayo aqalkeedii bay fadhidaa nebi allow markaabuu nebigu ku yidhi u sheega oo waxaad ku tidhaahdaan iyadoo da'daasa jannada geli maysee iyadoo inan yaroo 30 jira laga dhigay bay jannada geli doontaa ku dhahda buu rasuulku yidhi innaa ansha'naahunna insha'a fajacalnaahunna abkaara curban atraaban liasxaabi alyamiin shaab buu qofku noqonayaa markuu jannada galaayo adoo gaboobay jannada ma gelaysid adigoo murugaysana jannada ma gelaysid wanasacnaa maa fii suduurihim min ghil